kulan waxaan wanaagsan idin lahaantiin baa meel bad joogtaan iyo si walba isla maqalkan idin soo gaaraya ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka hadashay dagaalka ka socda dalka Ethiopia taageerana u muujisay xoogga TPLF ee dagaalada kula jiro ciidamada dalka Ethiopia. Haddaba dawladda Soomaaliya maxay ku soo kordhin doontaa ama maxay tahay taageerada ay u muujinayso xoogga TPLF maxay ka saacidin kartaa xilli dalka Soomaaliya ay ka jiraan dagaalo iyo waliba weeraro ay soo qaadayaan kooxaha argagixisada Al-Shabaab. Khilaaf xoogan oo ka dhex qarxay xisbiga UPD ee haatan talada haya. Haddaba khilaafkaasi muxuu salka ku hayaa xilli madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ku maqnaa magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland iyo sidoo kale ra'iisul wasaarahana uu safar u jiro dalka dibadiisa. Haddaba khilaafkani muxuu salka ku hayaa warkeena ayaan si weyn ugu faahfaahin doonaa. dhanka kale tan ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa haatan war ka soo saaray dagaalo ay maalmihii ugu dambeysay kula jireen xoogga argagixisada Al-Shabaab kuwaasi oo ay ku baxsanayeen kana qabsadeen magaalooyin aad u tiro badan oo hoos yimaada gobolka Hiiraan. taliyaha ciidamada Africom ayaa war la yaab la jeediyay xilli dawladdu ay qorsheynayso go'aanna ay ka qaadan rabto ciidamada Africom iyo sidoo kale ciidamada ATMIS ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. waxaan sidoo kale soo gudbin doonaa qodobo dhowr ah oo ka soo baxay kulankii ay yeesheen ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo waliba gudoomiyaha midowga Afrika iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa xilli ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre la qorsheynayo in uu ka qayb galo shir kale oo ka dhacayo magaalada Tokyo ee xarunta wadanka Japan. guud ahaan qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa. barnaamijka waxay ugu heliyay saaxiibkay Santaag oo isha ku hayay wararkaasi iyo waliba warar kale oo aad xiiso u leh. Santaag soo dhawow haddii aynu ku bilowno wararka la xidhiidha in dawladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso taageero military oo ay ku garab istaagayso xoogga TPLF xilli dawladdu ay la daala dhacayso dagaalo iyo sidoo kale weeraro joogto ah oo ay geysanayaan ururka argagixisada Al-Shabaab. haddaba maxay tahay eedayntan dawladda federaalka Soomaaliya loo jeedinayo? aad iyo aad baad mahadsantahay ummadda Soomaaliyeedna waan salaameynaa. horta madaxweyne xasan sheekh maxamuud shantii hore ee uu ku jiray xukunkiisa dawladda Soomaaliya waxa uu garab istaagay sidoo kale saaxiib dawlo ahaa oo xulufo u lahaa ururkii laga taqalusay 2018 aan dhahne TPLF ee 30 sano ugu dambeeyay dalka Ethiopia ka arriminayay dagaalkana hadda kula jira dawladda federaalka ee Ethiopia. waa wax iska caadi ah markii loo fiiriyo garab istaagaya sidoo kale in ay maaragtay ay mowqafkeeda ay cadayso dawladda Soomaaliya iyo sida ay u aragto dagaalka ka socda dawladda dalka Ethiopia. maadaama dalka Ethiopia maalmihii ugu dambeeyayba lagu eedeynayay in ciidamo aad u tiro badan ay ku soo daadgureynayeen gudaha dalka Soomaaliya oo faragelin ay ku haysay gobolada dhaca dhinaca xadka dalka Ethiopia ee Soomaaliya. marka dawladdu mowqafkeeda maanta ay cadaysay waa mid markii horeba maaragtay lagu xamanahayay oo la sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la safan yahay Tigreega oo hadda dib u soo noolayn iyo sidoo kale dagaal xoogan kula jira dawladda federaalka iyo xukunka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. maadaama Abiy Ahmed uu ahaa shakhsi si dhow ula shaqeynayay saaxiib dhowna uu ahaa dawladdii hore ee Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo isla markaana afawaarki oo naftigiisa isagana ay xulufo ahaayeen saddexdaasi ninna si weyn la iskugu xamanahayay. taasi ayaana dawladda Soomaaliya maanta ay cadaynaysaa iyadana mowqafkeeda. dhinaca kale ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadda markuu imaaday wuxuu iyadana heshiis la galay dalka Masar oo iyadana cadow ay u arkayeen ofawaarka iyo sidoo kale dawladda dalka Ethiopia ay u arkayeen cadowgooda koowaad ay u arkayeen oo xulufo aan la ahayn ayaa iyadana uu heshiis la galay. shantii sano ee la soo dhaafayna maxamed cabdullaahi farmaajo hinkool adag ayuu sidaa ugu hayay madaxweyne Sisi waa madaxweynaha dalka Masar oo khilaaf xooggan uu kala dhaxeeyay dalka Ethiopia uu kala dhaxeeyay. marka waxaa la dhihi karaa dawladda dhawaaqistan maanta ay ku dhawaaqday waa mowqafkeedii koobaad ee markii horeba laga aaminsanaa xasan sheekh maxamuud haddii uu soo galo in uu yahay ardayga TPLF isla markaana uu adeegaya TPLF inuu yahay waa sida dadka Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin balse waa xeelad diblomaasiyadeed oo hadda isagu u ciyaarayo oo khasaarana dalka Soomaaliya u keeni karta faa'iidana dalka Soomaaliya labaduba u keeni karta. walow inta badan dadka Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in dawladda Soomaaliya heshiiska ay la gashay Masar inuu yahay mid xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia dhaawacaya isla markaana hore socodka Soomaaliyeed curyaaminahaya dhibaato ba'ana u keeni kara dadka Soomaaliyeed ee faraha badan ee ku nool gudaha dalka Ethiopia. aad iyo aad waxaan ogeyn isbuucii la soo dhaafay in ciidamo aad u tiro badan oo ka socda dalka Masar ay yimaadeen gudaha dalka Soomaaliya kuwaasi oo la sheegay in ay fadhiisimo ay ku samaysanayaan gudaha dalka Soomaaliya isla markaana la rabo in looga duulo dalka ama duulaan lagu qaado dalka Ethiopia. arrintan soo wadada oo ma xaadayso dagaal ka dhex qarxa dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia.
ان horta maanta Ethiopia Soomaaliya ma dagaali karaan Soomaaliya naftirkeeda way kala waxa way qaybsan tahay gobollo ay u qaybsan tahay gobol walba madaxweyne uu leeyahay maanta inaad Soomaaliya ogta waramaaya waxa ay haysataa 6 madaxweyne ay haysataa oo nin walba madaxweyne walba dhinaciisa u qaraab tagaya oo dawladdu rabeeshiis la galaya waad ogad Cabdicasiis lafta garan in Ethiopia uu heshiis la soo galay dawladda federaalku maysan ogeyn ciidamadii ugu badnaa ayay marti gelinayaan gobolka maamul goboleedka koonfur galbeed dhinaca gobolka Hiiraan dagaalada waxa ka wada shabaabka la dagaalaya ciidamada ku sugan ugu badan waa Ethiopia iyo Djibouti oo qayb yar iyadana ay ka joogto dhinaca Puntland saraakiil iyadana ayaa tagtay oo ciidamadu mar walba waxay doonaan ka sameeysan karaan Ethiopia qonsulaa iyo u soo magacawday maamul goboleedyada dhaca xad kasta maaragtay Ethiopia dhaca gobolka Gado intiisa badan gacanta waxa ku haya ciidamada Ethiopiana ku haya garoomadii ay maamulahayaan magaalada Kismaayo oo daragtay ciidamada Ethiopiana ayaa ku sugan maanta marka ma dagaali karaan Soomaaliya iyo Ethiopia walow Ethiopia naftirkeeda ay hurayso oo dagaalo gudaheeda uu ka socdo oo qabiil ay u safan tahay qoomiyad ay u dagaalayaan lahaansho dhul la isku dagaalayo jabhado arada ka badan oo meel ay ka marqaataan aan la garanayn ay ka dagaalayaan ururada argagixisada naftirkooda ay saameyn ku leeyihiin oo asbuucyada la soo dhaafay xoogga dawladda federaalka iyo sidoo kale ciidamada liyu booliska dawladda deegaanka Soomaaliya la isku geeyay laakiin meesha waxaa taala oo maanta labada dhinacba way uleeyaan laakiin dhinaca diblomaasiyadda iyo xiriirka iyo isdhaxgalka bulshada iyo isdhaafsiga ganacsigaba dhaawac ayay u geysatay heshiiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la soo saxiixday dhinaca dalka Masar Masar ay garab taagan yihiin madaxweynuhu uu ku sheegay in taaka dhuleed iyo sidoo kale masiirka reer Masar uu saameynayo haddii ay dhibaato loo geysto oo la taabto shacabka Soomaaliyeed waa soo madaxweynuhu uu sheegay marka isku duuduub dagaal Ethiopia iyo Soomaaliya u dhaxeeya oo foolka fool ah ma dhacayo balse siyaasadda markii la dhaho ahaan naftirkeeda Soomaaliya iyo Ethiopia maanta ma tartami karaan oo dalka Ethiopia waa dal hadda dhisan ciidamo fara badan leh ka tira badan dalka Soomaaliya saameyn ku yeelatay 30 sano la soo dhaafay gudaha dalka Soomaaliya Ethiopia marka waxay sameynayadu inay kala furfurto isdhaxgalkii iyo sidoo kale inay kala furfurto siyaasadda dalka Soomaaliya goboleedyada iyo dawladda dhexe aad waxa jirtay inay maalmihii ugu dambeysay soo baxaysay warar la xiriira in wafdi ka socdo xoogga TPLF ay ku sugnaayeen gudaha caasimadda Soomaaliya isla markaana ay kulamo la qaadanayeen saraakiisha iyo waliba sirdoonka dalka Soomaaliya Soomaaliyana waxa ku sugan ciidamo aad u tiro badan oo ka soo jeedo dalka Ethiopia iyo waliba midowga Afrika arintan haddii ay dhab noqoto oo ay soo baxdo dawladda Soomaaliya oo ognahay inay u tabarlaadahay urur yar oo al-shabaab oo ognahay taagtiisa isla markaana aan gaaraynin 10,000 oo gudaha dalka Soomaaliya dhibaatada artay ka geysto weerarkii ka dhacay hotel Xayaat iyo waliba weeraradii kaleeto ee lagu qaaday gudaha caasimadda iyo waliba magaalooyinka u dhow magaalada Jowhar iyo waliba magaalooyin la mid ah Soomaaliya kale dawladdu haatan waa ay ku fashilantay oo yacni waxay gashay bad aysan ka bixi karin horta ma aha Xasan TPLF ma taageeraya mise ma taageeraya saraakiil ma la kulmeen mise labay kulmeen taasi horta waa dhab iyadu oo dhab la sugahayo ma jirto Xasan Sheekh Maxamuud isagoo nimaanin baa looga dawladdiisii hore looga cid walba calaaqaad waaga uu la lahaa umbu haddana calaaqaad la leeyahay oo maaragtay uu xiriir fiican la samaysanaya meeshan Afrika sidaad ogtayba waxaa jira iyo caalamka aan dhahna waxaa jira wax la yiraahdo coalition oo markaasi la isgarabsanayo isgarabsi wax la yiraahdo oo nin walba oo madaxweyne imaado wuxuu samaysanayaa garab adag oo uu leeyahay siyaasad ahaan iyo sidoo kale taba afkaartiisa uu ku gadi karaa oo caalamka uu kaga dhaadhicin karaa oo Afrika uu kula tartami karaa oo isleeyahay ayuu samaysanaya Afrika sidaad ogtayba hadda waa dhowr garab bay u kala dilacsan tahay inta badan waxyaabaha imaada lagu meeshiyo hadda xilligan dagaalka ka socda gudaha dalka Ethiopia ururadu ay ku tagaleen jabhadaha ay ku tagaleen dawlado ayaa waxa weeye faangaraynaya Xasan Sheekh Maxamuud ujeedkii loola kulmay ee Tigreegu ay ula kulmeen wuxuu ahaa maadaama go'doon uu saaran yahay cunaqabatayn ay saaran tahay goboladooda waxba loo soo marin karin Soomaaliya ay tahay dhul iska furan oo nin walba wuxuu doono uu ka soo dejin kara ay tahay in hubka iyo sidoo kale zaanada ee dhaqaalaha iyo wax walba ay kala soo degaan meeshii marka meel allaale meeshii lagu siin karana markaasi lagu siiyo oo loogu keeno ciidamadooda loogu keeno heshiiskii waa uu dhacay oo Xasan Sheekh Maxamuud waa maalintii xilka loo dhaariyay ayay u soo hambalyeeyeen kadibna kulankooda wuxuu ka dhacay dalka Djibouti waana la ogaa haddana xiriir bay wada leeyihiin adkaarta iyo sidoo kale waxa uu ka aaminsan yahay Xasan Sheekh Maxamuud TPLFna wuu cadeeyay taageero wuxuu ahayay waa u muujiyay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen Abiy Ahmed loo dhaafin lahaa xilka looga tuuri lahaa hadda lagu guda jiraa meel wax la isku mariyaba iyo wax la isla qabtaba aad taliyaha ciidamada Africom ee dalka Mareykanka ciidamadooda ku sugan dalka Soomaaliya ayaa imaaday halkaasi waxaana uu keenay qorshe la yaab leh oo ay ku wajihi doonaan ururka argagixisada al-shabaab bal qorshahaasi muxuu yahay maxay tahay dawladda go'aanka ay ka qaadatay ciidamada Africom iyo sidoo kale ciidamada ATMIS
ma maraykan afkiisiya wuxuu u sheegay mise xaqiiqada taalla ee loo baahan yahay in loola dagaalamo ururada argagixisada xaqiiqada cid rabta in loola dagaalamo oo ururo argagixiso Soomaaliya laga saaro ma jiraan wax cid doonaysa oo dawlad ama Afrikaan ama cadaan ama balaayo iyo kuwan hadda taaganaya beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliya la baxay cid rabta Soomaaliya inay nabadgeliyo noqoto oo dagaal la qaado oo ururka argagixisada la dhameeyo ma jiraan nimankani waxay sameeyaan dhaqaalaha ugu badan bay ku bixiyaan ururada argagixisada ayaga siiya ninka ay rabaan bay dilaan qofka ay rabaanna way deystaan sanado markay ka soo wareegtaa waxay dhahaan ninkii madaxda u ahaa baan toganay meel hebla ayaan ku dilay bay dhahaan sirdoon ay gudaha u dirsadaan lacagta iyo dhaqaalihiina way siiyaan waxaa la rabaa waa mashruuc la rabo in shacabka Soomaaliyeed la isku baabi'iyo oo la isku dhameeyo la rabo taliyaha kulankiisa maanta uu la qaatay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya uu la qaatay waxay ka wada hadleen in lala dagaalamo ururka argagixisada shax ayuu keenay waa taliye cusub hadda la soo magacaabay shaxdii uu keenay ee uu Mareykanka ka watay ayuu keenay uu yiri sidan baa loola dagaalamaya laakiin si lagu soo afjari kara maaha shabaab waxa loola dagaalami karaa ciidamada Soomaaliyeed in dhiirigelin loo sameeyo oo la garab istaago oo la qalabeeyo oo hubka ugu casrisan la siiyo oo gaadiidka la siiyo oo ciidamo isku dhafa oo maamul goboleed aan ka amar qaadanin dawladda dhexe bas si toos ah ay u maamulayso in waxa weeye lagu wajaho la dagaalanka ururka al-shabaab way soo afjarayaan sanad ayayna ku soo afjarayaan in ka yar ururka argagixisada al-shabaab 10 kumadood ku sheegtay laakiin ma dhanna xaqiiqada rasmiga dadka waxay ka haystaan maskaxiyan oo shacabka waxay u isticmaalaan maskax ay shacabku cabsi geliyeen oo horaan ay dhibaatooyin inta ku sameeyaan shacabka ay cabsanayaan ay u isticmaalaan laakiin tayo iyo ciidan iyo awood uma isticmaalaan ciidankoodu kama badna 6,000 askari xataa ma dhanna macallinta taageersan baan dhannayn shacabku way daaleen dagaal way ka soo daaleen dhibaato badan bay kala soo kulmeen oo dhinacyadii dagaalamayay ciidamada iyo sidoo kale kuwa Afrikaanka iyo kuwan ayaga naftirkooda dhibaatooyin afarta jaha kaga socday shacabku waxa weeye maaragtay ay ka soo gaadhay ku effect garoobeen shacabku marka maanta waxay u baahan yihiin nabadgeliyo cid maanta soo dhaweynayso doonayso dhahaysa shabaab baan doonaynaa ma jiraan laakiin ma ku dhiiran karaan shacabku intay istaagaan ay dhahan anagu kuma rabno inay dhahan ma dhihi karaan qofkii juu dhahay iyo qofkii loo maleeyaba kurka maqan madaxa loo fiiqi mar haddii marka madax loo fiiqi shacabku way iska aaminsan yihiin wixii xoog ba looga qaadanaya wixii keen la dhahay dhiibaan dhaqaale maalintii la isku soo waxa weeye ay rabaan bay shirar isku keenaan u soo cabatumaan waana cabsi ay ka qabaan oo kaliya marka taliyahan hadda shaxda uu keenay way fiicnaan lahayd hadii loo wajahayo laakiin looma socdo waxa weeye qowda maqashii waxana ha uu qaban aad iyo aad safarkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya warar ayaa ka soo baxayo maanta waxa uu la kulmay gudoomiyaha midowga Afrika iyadoo waliba ra'iisul wasaaruhu uu safar ku aadayo wadanka Japan gaar ahaan caasimadda Tokyo bal maxay tahay waxay ku heshiiyeen ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale gudoomiyaha midowga Afrika horta kulankoodii ay halkaasi ku qaateen waa kulan wuxuu ahaa saacado qaatay waxay labadan mas'uul ka wada hadleen Afrika sida ay uga go'an tahay Soomaaliyana ay ugu baahan tahay Afrika maxaa ka go'an Afrika waxa ka go'an in la garab istaago dib u dhiska Soomaaliya dib u heshiisiinta iyo sidoo kaleeto la dagaalanka ururka argagixisada maadaama ciidamadii ugu badnaa oo Afrikaana ay joogaan 15 sano 16 sano ay joogaan gudaha dalka Soomaaliya ay joogaan wax weyn oo la taaban karana aysan qabanin ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisana ajandahoodu uu ahaa sidii loola dagaalami lahaa ururka argagixisada mowqifkooda koobaad iyo labaad iyo saddexaadna ay ku sheegeen la dagaalanka ururka argagixisada madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in isagu doonayo inuu ka tago taariikh Soomaaliyeed uu ka tago haddii 5 sano soo socota maaragtay la dib loo doortana sidaas uu ku sii wada haddaan dib loo dooranin uu taariikh Soomaaliya uga tago in ururka argagixisada gabi ahaanba uu soo afjaro haddii 5 sano uu qaban waayo dalka Soomaaliya uu qaban waayana inuu xukunka ku wareejiyo sida Daaliban waa ujeedka ay cadeeyeen dam jadiid ay sheegeen inuu suura galay la garanay laakiin waa sida ay cadeeyeen oo ayagu sida Daaliban oo kaleeto xukunka ay u dhiibaan shabaab ay dhahan shabaab naga qabsada waan 15 sano 16 sano 20 sano dagaal wadnay qabsada la yiraahdo xukunka sida loo wareejiyo maadaama ujeedkoodu sida ahayo ay cadeeyeen ayaa waxa laga hadlay sidii Afrika ay uga qayb qaadan lahaayeen oo midowga Afrika dhamaantood ay uga qayb qaadan lahayn gudoomiyuhu uu u garab istaagi lahaa soo afjarida cirib jarita iyo sidoo kale la dagaalanka ururka argagixisada ama ururada argagixisada ee shabaab maadaama shabaab bas uusan joogin oo Daesh naftigooda ay ku suman yihiin iyo cid walba oo ka soo horjeeda dawladda federalismka iyo nabadgelyada amniga Soomaaliyeed iyo hor u socodka Soomaaliya cid walba ka soo horjeeda loo dagaalami lahaa in garab laga siiyay lagu heshiiyay balse sanadii la soo dhaafayba kulamada sidan oo kale taa u dhacayay ra'iisul wasaarayaashii hore iyo madaxweynayaashii horeba midowga Afrika kulama ay
la qaadanayeen waa laga wada hadalhayay maxaa tallaabo la qaaday ciidamada midowga Afrika carrada ka badan ee gudaha dalka Soomaaliya ku sugan maxay qabteen shacabkay meel cid ku xasuuqaan bambaanooyin iyo soo kale to sida miinooyin bay ugu xabaalaan wadooyinka oo leeyihiin ururka shabaab kaga hortagtiina waxba isma dhaamaan ayaga iyo ururka argagixisada shabaab waxa is dhaamaan oo weyn oo ay ku kala duwan yihiin ma jiro aad waxa soo baxayo madmadow iyo waliba khilaaf u dhaxeeya madaxda dalka ugu sareyso gaar ahaan xisbiga Damul Jadiid horta sidaad ogtahay ama ummadda Soomaaliyeed baan u sheegayno xisbiga Damul Jadiid horta ayaa ku midoobay xisbiga Damul Jadiid waxa ku midoobay saddex nin oo isku qabiila ayaa markii hore ku midaysnaa saddexdan nin waxay ahaayeen xisbigii Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo horkacayay wadajir iyo xisbigii Cabdiraxmaan Guleed ninka la yiraahdo isagana uu horkacayay iyo Xasan Sheekh Maxamuud saddexdaasi ayaa ku midoobay gudoomiyana waxa uu ahaa oo musharax u ahaa madaxweynenimo in ay u tartamaan saddexdoodu way tartamayeen balse markii dambe waxay ku heshiiyeen in Xasan Sheekh Maxamuud la dhiso oo isaga la soo saaro wixii ka soo baxa oo markaasi guusha markii ay imaatana hadhow dawladda ay ka wada dhaxmuuqdaan saddexdaasi xisbi iyaga oo markaasi saami qaybsi siyaasadeed ku sameynaya awoodaha gudaha dalka Soomaaliya ee xukuumadda iyo sidoo kale to magacaabista wasiirada iyo dhammaanba dhisitaanka dawladda inay ku midoobaan ayaa lagu heshiiyey iyadoo taasi marka ay jirto xubnihii laga magacaabay haday noqdaan ergo haday noqdaan agaasino haday noqdaan dhisitaankii golaha wasiirada haday noqoto ra'iisul wasaarihii magacaabistiisa intaba waxaa qaatay oo ka soo dhaxmuuqda xisbigii Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha hadda talada haya ayaa ka soo dhaxmuuqda nimankii kale marka waa iska waayeen raggoodii iyo sidoo kale saami qaybsiga siyaasadeed ee lagu heshiiyey ayay meesha ka waayeen khilaafka horta taasuu ka dhashay markii laga reebo heshiiska maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee iyada naftirkooda ahaa oo Saciid Cabdullaahi Deni iyo sidoo kale to Jubbaland oo kale oo ay ku heshiiyeen in ay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay xilka dhaafiya meesha ay dhaafiyaan kadibna shakhsi si iyagu ay wataan oo ka duwan uu soo galo oo ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu soo galo sabab u noqotay in marka khilaafkaasi marka laga soo tago iyagii dhaxdoodii naftirkooda ayaa tabashooyin iyo sidoo kale magacaabistii golaha wasiirada iyo saami qaybsiga siyaasadeed ayaa la isku haystaa khilaaf xoogan ayaana ka taagan si la isku waafajin doonana lama garanayo oo hadda nin xil la siiyay intii laga qaada nin kale loo magacaabo khilaafkii haddana waa uu sii weynaanaya waxba ma keenayo marka khilaafku kaas ayuu ka dhashay aad iyo aad ba mahadsantahay daawadayaal idinkana waa mahadsantihiin guud ahaana intaasi ayaanu ku soo koobaynaa barnaamijkeenii intaan kan xiga ku kulmi doono waxay naga tagay sidaas iyo ammaan Allah